بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين daawadayaal iminkana waxaad kusoo dhawaataan casharkeenii afraad ee casharadii taxanaha ee luuqada VB-ga oo insha Allah aynu heer sareeya ka gaari doono casharadeenni ay taxanaha inoo noqon doonaan oo aynu insha Allah tacaala ku dhisi doono system dhan oo shaqeynaya haddii Allah awood la idmo sida system-kan aad aragtaan ee aan soo kicinayo iminka waad aragtaa waa database system usoo kacaya macalad wuxuu leeyahay tankii uu ku soconayay adminkii ayuu ina siiyo wuxuu leeyahay waxaad gelisaa username-kaaga iyo password-kaaga si aad u guda gasho system-kan ayuu ina leeyahay markaa waxaan rabnaa inaan system-kan guda galo waa kii taxaankayga laga qaday oo dhammaan aad buu u shaqeynayaa username-kayga waxaa xasan q3 buu ahaa ayaan filayaa password-kaygiina waan garanayaa 3 xaraf ayuu ahaa markaa insha allahu tacaala halkana roleskayguna wuxuu ahaa markaa national markaa waxaan leeyahay login enter ayaan leeyahay sidaad aragto waxaan iminka gudagalay system-kaygii ama database system-kaygii waraaq yar ayaa la siiyay oo leeyahay welcome main form-kan lagu soo dhaweynayo waxaa ku yaala forman fara badan oo ay ka mid yihiin kii lacagta lagu bixinayay galaaskii roleskii iyo user formkii registration formkii faculty formkii baagtii shitdom sidoo kale halkii log out in laga baxayo iyo shitdom in la baktinayo system-kaaga iyo in laga baxayo oo haddaan idhaahdo log out idhaahdo wuxuu odhanayaa miyaad hubtaa inaad ka baxdo application-kan haabaan leeyahay wuxuuna siiyay saad aragtaanba main formkii markaa dib aan ugu noqonayaa wuxuu leeyahay registration formkii oo isaguna kii lacagta lagu bixinayay ah oo sidaad aragtaanba dhammaan soo wada akhriyaya halkan ayuu soo wada akhriyaya dhammaanba waxaa jira isaguna midba kooban u yeedhanaynaa waa kan delete buu leeyahay safety buu leeyahay marka delete ku dhufato wuxuu ku leeyahay miyaad doonaysaa inaad masaxdo xogtan maya baan leeyahay iminka system-kan oo kale sidee ayaan u abuuri karnaa wuxuu leeyahay faculty-gii wuxuu leeyahay wax walba uu leeyahay ka noqoshada markiiba ka noqon maayo sida application-ada caadiga ayuu su-aal ku weydiinaya isagoo Soomaali ku weydiinayo kale ma hubtaa inaad ka noqoto application-kaaga yes baan leeyahay oo ka noqday marka form-kan oo kale sidee ayaan ku samayn doonaa ayaynu baraynaa sidoo kale wuxuu leeyahay reportskii inaad waraaq ahaan qofkii ugu daabacdo haddii lacag lagu lahaa iyo xilligii register gareeyay wixiiba waad u daabici kartaa qofkii wuxuu leeyahay adminkii iyo userkii inta data entry buu leeyahay oo iyaduna qaybahan oo kale la mid ah marka insha Allah tan oo kale ayaan rajeynayaa inaynu ka gaadhno haddii aad si taxana ah ula socotaan casharada oo step by step ah oo si fududna aan usoo koobi doono oo yaryarayn doono soo ardaygu ama qofka baranaya uu u fahmo insha Allah tacaala markaa daawadayaal waxaan doonayaa inaad casharada ka taxadirtaan oo casharada ama soo dhoongaraystaan ama daawataan oo casharadu siday isugu xigaan 1 iyo 2 iyo 3 aad u soo dhoongaraysataan ilaa base-ka insha Allah ayaynu dhignay markaa iminka casharkan wuxuu noo noqonayaa casharkii afraad mar walbana waxaad casharadayda ka helaysaa oo taxana ah channelka YouTube-kan oo ku leenahay ee Saac Software ama website-ka ah www.saac/software.weebly.com oo weeblyga waxaan u raacinay mar walba waa subdomain bahalku oo waa free website-ku wax qarashay isaga iminka kuma xidhna oo waa iska free marka insha Allah website-kana waad kala socon doontaan ama mar walba YouTube-ka ayaad ka doonan kartaan qofkii aan website-ka aad u fahmaynin isticmaalkiisa
saac software ayaad ku qoraysaa, kadibna wuxuu kuu soo qabanayaa channelka, isla markaana waad gelaysaa dhammaan waxaad ka doonaysaa videoska ku jira oo dhan. marka casharadii oo taxanaa 1 iyo 2 iyo 3 la ayuu ku siin doonaa insha allahu tacaala. marka insha allah waxaanu doonaynaa inaynu bilowno casharkii. daawadayaal, haddaba iminka waxaynu gudageli doonaa insha allah casharkeenan afraad. si wacan markaa ugu fiirso adiguna insha allah. markaan iska gudagalno insha allahu tacaala casharkeenii ayaynu gudagelaynaa insha allah haddii allaha awoodda la idmo. waxaynu yar sugaynaa inta yaroo inoo soo yarkacayo. waad aragtaa iminka wuu inoo soo kacayaa. waa kan Visual Studio waliba versionkii 2010 ayaan isticmaalaynaa, oo kuwii ugu dambeeyay ah ee aan cid kale ka dambaynin. casharkeenii saddexaad waxaynu horta kusoo baranay afartii daaqadood ee ugu muhiimsanaa ee uu ka koobnaa programkan VB-gu. iminkana waxaanu sameynaynaa insha allahu tacaala sida adminkaas aynu hore kusoo aragnay, videoga hortiisa kusoo aragnay. haddaad doonto inaad ku ceshan karto adminka ugu horeeya ama userka lagu gelayo databasekan aynu insha allah sameyn doono ayaynu sameysanaynaa oo bilaabayna insha allah inagoo sameysanayna new form ama form cusub ama new project cusub. sidaad arkaysaan baa casharkeenii waxaynu ku guda jirnaa programkeenii ama applicationkeenii. waxaynu leenahay si aynu u sameysano form ama u bilowno casharka, oo casharku wuxuu si toos ah uga bilaabmayaa casharkan afraad ayuu si toos ah uga bilaabmayaa. marka waxaynu leenahay si aynu form u abuurno. formka ugu horeeyana mar walba wuxuu noqonayaa adminka, oo adminkaad sameynaysaa ugu soo horkacayana. marka insha allahu tacaala waxaynu leenahay sida la isugu xidho casharada dambe aynu ku baran doonaa. waxaan leenahay new project cusub sameey ayaan leeyahay insha allahu tacaala haddii allaha awoodda la idmo. new project ayaan leeyahay. kolley computerka yar culus halkan markuu yimaado waxyaabahan kale waxa weeye luqado kale. marka Visual Basic oo VB ah ayaa dooranaysaa. halkanna waxa ku doornaato Windows Form Application. halkan ayaad magaca ka bedelaysaa. markaas waxaad leedahay database baan ku qorayaa. database ayaan ula baxayaa. database saac software baan ula baxayaa. saac software ayaan ula baxayaa. database aan ka baabiyo saac software ayaan u deysanayaa kaliya insha allahu tacaala. kadibna waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay. markaa uu inoo soo baxaya insha allahu tacaala. waad aragtaa iminka waa inoo soo kacay formkii form 1 iyagoo bixiyey ayuu inoo soo kacay. form 1 inagoo bixinay ayuu inoo soo kacay. markaa waxaynu leenahay si aynu formkii u design garayno, waxaynu leenahay marka u horeyso horta magacayaynu admin ka dhigaynaa inagoo .vb-ga aan ka baabiinayn. waxaan leenahay form 1 baynu ka baabiinaynaa, .vb ka baabiin mayno oo programka qalayo waa sumadiisa .vb-gu. marka waxaan leenahay admin baan leenahay. admin form waa formkii adminka. markaa sidaad aragto iminka halkaas sare wuxuu ku qoray admin form.vb. markaa si aynu casharkeena insha allahu tacaala aynu xidhiidh uga dhigno, aan yar kordhisano. waxaynu leenahay waynu isjiidaynaa oo admin baynu leekaysiinaynaa ama kaararka dadku qaataan jaamacadaha ku galaan oo kale. inta badan kaasoo kale ayuu systemku leeyahay. markaan sidaan nidhaahno ugu horeynta waxaanu soo qaadanaynaa insha allahu tacaala tooliska ayaynu soo qaadanaynaa ama inagoo tegayna insha allahu tacaala halkaa. waxaan leeyahay tegayna halkaa yar ee toolbox ku taalo ayaan ku dhufanayaa. dabeedna sidan bay igu soo baxayaa. marka insha allahu tacaala waxaan rabaa
inaan borogramkayga aan halkan ii joogsamo markaan rabo inuu ii istaago. waxaan rabaa inuu istaago oo markaan saa uga noqdaba dib uu noqonayo soo ma. laakiin markaan rabo inuu istaago halkaa yar baan leeyahay saa leeyahay foororinayo bahashaa yar deedna kadibna wuu istaagayaa. sidoo kale halkan daaqadii solution explorerkii ayaa iyaduna igu jirta. halkanna sidoo kale waxaa igu jirta sida ku muuqata daaqadii propertieska ayaa igu jirta. markaasaan casharkeenan u bilaabano waxaan soo qaadanayaa halkii aan ku gurayay groupbox ayaan soo qaadanayaa. casharka si wacan ila soco insha allahu tacaala. in si wacan ila socotaan ayaan filayaa. waan soo qaadanayaa. markaan soo qaato waxaan leekaysiinayaa oo ku ballaadhinayaa. halkan ayaan ku ballaadhinayaa insha allahu tacaala. markaas si wacan ayaan u leekaysiinayaa. halkan hoosena isku soo celi. dabeedna markaan leekaysiiyo saa intaan u highlight garaysto ayaan waxaan leeyahay waxaan tegayaa insha allah properties ayaan tegayaa. backgroundkii ayaan tegayaa. halkan ayaan ka bedelayaa color. waxaan bedelayaa colorkiisa sidaasaan ka dhigtay ama iga daawan leeyahay kaa. halkanna waa lamid, halkanna waa lamid. waxaan leeyahay kaasaan anigu inta badan jecelahay oo midab fiican oo indhuuna ku degayaana kaas ayaan ka dhigtay. fontiskana waxaan leeyahay halkanna waxaan leeyahay flat ka dhig baan leeyahay flat ka dhig. halkanna waa fartii oo iyadu waa iska caadi. fartu waa far iska fiican. markaan tabtaa idhaahdo waxaan soo qaadanayaa insha allah waxaan soo qaadanayaa labelkaasaan ku qorayo username iyo password iyo roles ayaan soo qaadanayaa sida halkan kaaga muuqata. waa koobiyeysanayaa. basti baan leeyahay. kanna waa hoos dhiganayaa. mid kalan leeyahay basti 3 ah level 3. saddexdaa level markuu ii sameeyo markaas mid walba dhammaantood magacyadooda ayaan bedelayaa. waxaan leeyahay waxoodba saasaan isku highlight garayaa saddexdaas. dabeedna waxaan leeyahay farta iyo roonroone ayaan leeyahay. fartii ayaan roonrooneysanayaa. waxaan leeyahay iga dhig 12 iga dhig baan leeyahay insha allah. 12 baa ay noqdeen. marka mid walba magaceedan ka bedelayaa anigoo intaan soo highlight garaysto kadibna tegaya propertieska. kadibna waxaan leeyahay halkaa magacu ku qoran yahay ayaan baarayaa. level 1 waa textigii oo waa halkan textigaas. level 1 halkii ku qoran tahay ayaad ka baabinaysa. waxaad ku qoraysaa username ayaad ku qoraysaa. sidaad ila soco username ku qoray. kanna password ayaan ku qorayaa anaan ka tegin. waxaan ku qorayaa password baan leeyahay. kanna waxaan leeyahay roles ayaan leeyahay insha allah. roles ayaan leeyahay. labadiiba waan idhi. dhammaan magacyadii baan iminka ula baxay. marka waxaan rabaa inaan hor dhigto halkan como bogaska waxaan usoo qaadanaya isaga roleska oo isaga waxbaa laga doortaa. marka intaan labadaba isku highlight gareeyay ayaan farta yar roonrooneysanaya oo fartii baan yar weyneynaya. way fartii waa tan. marka waxaan leeyahay 14 iga dhig ayaan leeyahay. kanna hore u yar qaad. kanna waxaan leeyahay waad dhisan garanaysaa waana qurux badnaysiinaysaa insha allah. kuwana aynu soo qaadano. kuwana waxaan soo qaadanaynaa insha allahu tacaala. text boxkan ayaan u baahnaa. text box waa sanduuq qoraal geli karayo. text box waa sanduuq qoraal. marka saa ayaan u jiidayaa oo username-ka gelaya.
saa u jiido waxaan leeyahay isku haylaad garee, kadibna farta yar roonroonayso si uu qurux bato, meeshiina si wacan ugu leekaado. 4 iyo 16 ka dhigo, ayaa aad buu weyn yahay. Waxaan ka dhiganaynaa insha Allah 4 iyo 10 ayaan ka dhiganaynaa. Waka 4 iyo 10 ayuu ku qurux badan yahay. Halkan aad baad isu leekaysiinaysaa oo si uu kugu qurux badnaado. Marka kan baad dib u haylaad garaysanaysaa, koobi baad leedahay, dadna passwordkii baa isaguna halkan noqonaya. insha Allahu tacaala passwordka ayaa halkan noqonaya. Passwordku inta badan wuu gaaban yahay, waad soo gaabsanaysaa ama kaasaad leekaysiinaysaa insha Allah. Marka aan sidaan idhaahno, waxaan leenahay kan hore u soo yar qaad baan leenahay, ku soo dhaweeye sida kanoo kale, kanna hoos u soo yar dhig, isu dhadhawe adigu saad u qurxisan karto waxaaga. isu yar dhadhawe, markaas ayuu qurux badanayaa. saad aragtaba xaggaana u qaad oo halkan waxaan keensanayaa insha Allahu tacaala halkan waxaan keensanayaa insha Allah haddii Allah awood la idmo. waxaan keensanayaa isleekaysi xaggan qoraalka waka. markaa botoniskii baanu tegaynaa, waanu baadhaynaa xagga u horeeyu ku jiray baan u malaynayaa. botonkii waa kan botonkii insha Allah. fartaad yar waa weynaynaysaa, isagana waa yar kobcinaysaa. dadna waxaan leenahay farta noo yar waa weynee, nooga dhig 12 nooga dhig baan leenahay. markaan saanano koobi baan leenahay, baasti deedna koobi deedna baasti baan leenahay. isagana halkan baan dhiganayaa. kan halkan dhigto waxaan tegayaa textigiisa, logintii baan ku qoranayaa. halkanna waxaan leenahay insha Allahu tacaala close ayaan leenahay. iminka saad aragtaan weli wuu soo qurxoonaanayaa marba marka dambeysa insha Allah. waad isu dhadhaweynaysaa oo waad isu yara aruurinaysaa si uu u qurux bato. bahalkaaga ayaad isu yara dhadhaweynaysaa insha Allah. halkan waxaan soo gashanaynaa sawir ama sawirkii kurka ee sidii videogan yare hore aan ku soo aragnay intii yarada hordhac ahayd. halkii sawirku gelayay ayaynu ku muujinaynaa insha Allah. picture baynu meelahan ka eeganaynaa. picture waa kan picture box halkan baynu geynaynaa, deedna dacal baynu ka buuxinaynaa insha Allah. insha Allah tacaala saad aragtaan waad aragtaan iminka. harooga yar qaad dhammaantood intaad ku wada haylaad garayso, kadibna halkan leekaysii kalarkiisa ka bedel. meesha kalarkiisa aynu bedelo, waa kan kalarkiisii cadaan baan ka dhiganaynaa, ama cadaan ka dhigan mayna, midabkaas oo kale ayaynu ka dhiganaynaa, iska cadaan xigeenka. maxay ahaydee halkanna waxaanu leenahay falaadkiisaasaynu taawdaynaynaa. backgroundkiisa maxaa ka dhigan, kaana kaawdaa, kaana kaasigadaa. marka insha Allah waxaan filayaa marka halkaas sawir baad soo gelinaysaa. halkaas sawir ayaad soo gelinaysaa insha Allahu tacaala. bal waxaan filaynaa marka sawirka markaad soo gelinaysaa saasoo kale garanaydaa. halkaas ayaa furay choose image ayaa tegaysaa. choose image, dooro sawir, kadibna waxaad leedahay import iyo soo dhoof baad leedahay, aad kusii dhufanaysaa insha Allahu tacaala. markuu sidaa yidhaahdo
saa ugu sii dhufano waxaanu tegi doonaa insha allah pictureskan bal hadda ka baadhaynaa. aniga meesha ii yaaleen sidaa baan ka helay. markaad saa ugu sii dhufato aad guda gasho kan baan anigu doonayay kaas oo kale mid u eg ayaad soo gashanaysaa. dabeedna waxaad leedahay okay ayaad leedahay. okay markaad taado iminka waxaad moodaa inuu dacal liqay. dacalka markuu liqo si qurux badan u leekaado halka normalka baad ka bedelaysaa. waxaad ka dhigaysaa strategic image baad ka dhigaysaa. dabeedna si wacan ayuu iminka u deeqay sidaad aragto. insha allah saasaad u qurxinaysaa mar walba oo mar walba qofku isagaa qurxinta kuleh. markaas in yar soo yar kala dedeji koona soo yar kala qaadqaad. dabeedna aan save garaysano waxaan leenahay save admin vb save ayaan leenahay. xagee ayaan kuu dhigaa buu yidhi. marka waxaan leenahay dhugmantigaaba noo dhig. annaga dhugmantigaaba noo dhig baan leenahay. markaas waxaan leeyahay save baan leeyahay. saad aragtay iminka waa ready oo waa save. markaa aan soo kicino insha allah. bal aan soo kicino soo kacaya. markaa hadeer ran baan nidhi oo rantaas ayaan siinay. markaa soo kacaya sida borogaraamada caadiga ahayd buu soo kacayaa. markaa iminka waxaa dhici doonta inuu dacal ka soo baxo. wakaa dacal buu iminka ka soo baxay sida kuu muuqata. marka waxaan rabnaa inuu bartanka ka soo baxo. adminkaas uu kasoo boodo. wakaa iminka aad aragto wuxuu ka soo baxay sida kuu muuqata. iminka wuxuu ka soo baxay dacal. markaa ma rabno inuu halka ka soo baxo laakiin bartanka oo kale ayaan rabnaa inuu ka soo baxo insha allahu tacaala. marka waxaan leeyahay halkaasaan leeyahay ama stop ama break baan leeyahay. dabeedna waxaan leeyahay stop baan leeyahay. kadibna halkan baan tegaynaa si uu bartanka uga soo kaco. halkan ayaan tegaynaa click si foomka u hooseeya hadda ila soco. foomka u hooseeyaan click si ama halkaas saraan click si dabeedna kaa hoosaa highlight gareysmay. kadibna waxaan leeyahay start position booska uu ka soo kacayo ama uu ka soo boodayo oo kale halkaas ayaynu ka bedelaynaa. waxaan ka dhigaynaa center screen ayaanu dooranaynaa. markaa iminka saad arki doonto wuxuu ka soo bixi doonaa bartanka. wakaa wuxuu leeyahay halkan baa soo arki gala. wakaa kada halkan waxaa tag halkan iminka sida kaaga muuqata waxa uu leeyahay passwordkii wax ka qoraya isagoo muuqdaa baa laga yaabaa passwordkii. halkan waxba kuma jiraan. labadaaba shaqaynu ka qabanaynaa insha allah. aynu ku noqono. dabeedna waxaan leenahay stop ayaan leenahay halkaa. dabeedna waxaan tegaynaa halkaas ayaynu tegaynaa. markaan saa ugu dhufano waxaad ku qoraysaa calaamadaas haddii ila soco. waxaad tegaysaa bahalkaad saa u kala garaynaysaa. marka saa u doorato properties daaqadaad tegaysaa. dabeedna waxaad baaraysaa meel ay ku taalo password characters astaamaha password. haddaad ku qorto hash buu qoraya. haddaad ku qorto xidigtii buu qoraya. iminka tusaale ahaan sidaa kuu muuqata hadeer markaan soo kicino wuxuu qorayaa password waa password caadiya. iminka ayuu inoo qorayaa password caadiya kuu qorayaa iminka. marka halkana insha allah aan kusoo gurno iyagana wixii la kala dooranayay. iyagana saintada calaamadsato ayaa fitili taayar furaysaa. afka yar baad furaysaa. kadibna waxaad edit item baad leedahay. dabeedna waxaad leedahay admin baad ku qoraysaa admin. dabeedna enter user dabeedna waxaad guest sign qoran jirtaan filayaa. marka waxaad leedahay okay. iminka markaynu ku dhufano wuxuu soo qorayaa iminka halkan markaan furno ishan yar
wuxuu inoo soo qoraya keebaa doorana which one choose kee ayaa dooranaysaa markaan leeyahay admin dadna passwordkaagii waxaad leedahayba waxaa saac software buu ahaabaad leedahay halkana waxaad leedahayba passwordkaygu wuxuuba ahaa kada waa kada saasoo ahaa lag dadna waxaad leedahay log in ayaad leedahay log in insha allah in yar oo inooga harsan kolley casharkaa dheeraaday in yar oo inooga harsan foomkeenan adminka ayaynu insha allahu tacaala aynu insha allah kusoo qaadan doonaa casharkeena shanaadna oo aynu intan yar intaynu kusoo qurxino hadhowna foom kale uga gudbi doonaa kan laftigiisa waxaanu ka samayn doonaa insha allah horta kolley casharadu aad bay u fara badan doonaan oo bahalkani aad ayuu ugu adag yahay ardayda jaamacadaha iyo magaranaysa ICT-ga ama programmingka aad ayuu ugu adag yahay laakiin mar walba uu kugu adkaado maskaxdaada ayuu sii furfurayaa insha allahu tacaala marka casharkeena shanaadna in yaroo inooga hadhay foomkan oo in yarna cidi yarna kama dhaafi doono insha allahu tacaala macal halkan iminka aad aragto marka saa loo dulgeeyo wayna kalar soo saartaa marka saa كليك لا يهدنا إني كلر كلا صار تعالى راسيدا بطننا عادي برنامج أو كلا إن شاء الله تعالى تنر لميد إن شاء الله يوجنا وحنا هرداي كون أي مقعدة ميل كذا كقرينه أصلي أي شيء عشان رولس كي يكن فهم كني يبقى صور كي يكن لبضن حرير كده حياين إن شاء الله تعالى كبرندونا عشر كينو إن شاء الله تعالى سداس أيو إنه قصة عندنا mar walbana waxaad casharada oo taxanaa ka heli doontaa insha allahu tacaala channelka aan youtube-ka ku leenahay ee la yiraahdo saac software ama website-kayga www.saac/software.weebly.com ayaad kala socon doontaa insha allahu tacaala markaa daawadayaal casharaha taxanaha hakaadhin mar walba casharku ku xigo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ayaanu saalambarada ugu kala qoraynaa casharka koowaad casharka saddexaad ka afraad ka shanaad ka lixaad sidaas ayaanu insha allahu tacaala idinku soo gelin doonaa youtube-ka marka insha allahu tacaala inkastoo ay ka maqan yihiin iminka casharkii 2 iyo 3 insha allahu tacaala isagana waa soo dubi doonaa waan soo gelin doonaa isagu waxa weeye sida loogu install gareysanayo computerka iyo bal cidii shirkadan lahayd iyo waxyaabaha lagu sameeyo iyo waxa ayanu kaga hadli doonaa cashar koowaad casharka labaadna waxaanu kaga hadli doonaa sidee loogu install garsan karaa computerka 100 luqadood in ka badan 100 luqadood ayaa ku jirta programka laftigiisa oo ay kamid yihiin bahalkan wax lagu sameeyo Windows-ka iyo waa kamid ah applicationada mawlada kamid ah adigu waxyaabo fara badan ayaa kamid ah calculatorska kamid ah marka insha Allah tacaala waxaan ku eegi doonaa insha Allah hadii Allah idmo labada cashar ee wali inooga harsan soo gelin insha Allah 1 iyo 2 ayaa noo harsan insha Allah laakiin casharadan taxanaha halkaas ay ka soconayaan kuwana insha Allah waan soo gelin doonaa marka mar walba casharada la deg download garayso casharaha taxana aroorso kaar u soo dejiso oo YouTube ka soo dejiso marka la soco casharada cashar waliba casharka ku xigo ayuu sii furfurayaa oo fahamkii ku sii furfuraya horena way ku sheegay wixii aad fahmi weydaan insha Allah tacaala message ahaan ama fariin ahaan nooga tag casharka aad fahmi weyday hoostiisa comment ahaan noogu qor ama waxaad noogu soo diri doontaan email-ka aan leenahay ee dhaqankab143@gmail.com ayaad insha Allah tacaala si toos ah noogu soo diri doontaan casharkeenu intaas ayuu ku saabsan yahay waxaan idin la socodsiin doonaa anigoo casiraadan salaamaana tan iyo intaynu ku kulmi doono cashar ku xiga casharka shanaad ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh